sida ma jiro asmo waa inantayda aad baan u jecelahay labada kale isku hooyada yihiin iyo kuwa imika ii joogay igu yar baaruurtaydii ninna hilibkiisa ma kala jeclaa maadaama aanu kala jeclayn asma waxaan u sheegay ninna hilibkiisa ma kala jecla waxaan u malaynayaa ninna labadiisa garbood inaanu kala jeclayn midigta hadday goodana bidixda naafowda bidixda hadday goodana midigta naafowda markaan caruurtayda waan jecelahay codka aad maqlaysaan waa asma aabaheeda oo soo hadlay balse qof walba ma ogo aabahan waxa uu sheegayo asma waxay ahayd gabadhii saacadihii u dambeeyay baraha bulshada qabsatay oo qoyskeeda markii ay kala tageen bannaan cidlaha ku dhacday aabaha ayaa soo hadlay codkiisii oo dhammaystiran ayaan kuu fasaxi doonaa balse waxaan kaa codsanayaa walaalaha kale inaad gaarsiisid si ay u ogaadaan wax aadan ogeyn aabahan wuxuu sheegayaa qof uusan waxba ogeyn aan kuu fasaxo codka aabahan iyo waxa uu sheegi doono horta adeer aad baad u mahadsan tahay asma aabaheedu baan ahay anigu arrimahan baraha bulshada lama socdo maadaama aan la socon ayaa waxaa dhacday inaan yaroon adeer u ahay ayaa ii yimi dabadeedna wuxuu igu yiri adeer waxaan la sheegayay maxaa ka jiro oo walaal asma maxaa ku dhacay kaasaan ku yiri waxa kuma dhicin dee xagga hooyadii bay jirtaa baan ku yiri wuxuu igu yiri dabadeedna wuxuu igu yiri magaalada waxaa ku jira inaad gabadhaadii aad ceeriso hooyadeeda aad u dirtay gabadhan hooyadeeda ay soo ceerisay ee magaaladeeda ay ka shaqaysanayso kadib arrinkii asaga ahaa inantaydii baan la xiriiray inantaydii baa tiri dee adigana soo eriday oo gurigaagina waa kaaga soo tegay guriga hooyadana waa kasoo tegay idina way soo ceeriso oon shaqo tegay anugu marka arrinka sidaa ma jiro asmo waa inantayda aad baan u jecelahay labada kale isku hooyada yihiin iyo kuwa imika ii joogay igu yar baaruurtaydii ninna hilibkiisa ma kala jeclaa maadaama aanu kala jeclayn asma waxaan u sheegayaa waa inaan yar qadiyadda iska qaaday arrimo ka waaweyn baa jiray anigii hooyadeeda aad baan isku jeclayn oo waad dareemi kartaan dad isnacib lix carruur iskuma dhali karaan siyaabad jirta darteed imika halkan aan ka sheegi karin ayaanu ku kala tagnay maadaama ayadiina lix carruura ayna korin karin anigiina lix carruura aan korin karin ayaan waxaan go-aan ku qaadanay inay ayadana 3 ay qaadato anigana 3 ay siiso kuwa ay siiso aniga aan masaariiftooda iyo noloshooda aan damaanad qaado ayadiina kuwa hayso sida ay si lamid ah marka waxaan u yara fududaatay ifan xitaa haddii ay la guursaday xitaa gabar 6 carruur wadatay gabar 3 carruur wadato way dee kala duwan tahay marka inantaydu inanima iyo ciyaalnima haysaa aaba asma waxaan ku leeyahay codkayga hadduu kusoo gaaro meel walba joogta aaba ii noolow anigu waan ku dhalay ii soo noqo waxana waa maalmo way dhamaanayaan dawaka oo islaanta de marka hore waan kula noolaanayaa dee gabadha ugumay tegin booqasho ahaan bay ugu tagtay Itoobiya iga soo tagtay dee waa dareemi kartaa dee waalid markuu waalid kale u tago caruurtiisa inay leedahay war gabadhii adaa lagu aaminay istiraayadii ee bal aabaheedii u dir magaalada dee way iska xun tahay marka Soomaaliya waa iska dareemi kartaa meel walba ama Hargeysa noqoto ama Soomaaliya ha noqotee marka saa darteed markii loo yiri waxay tiraan meel aan u socdo ma laha aabahaasiisi baan isku soo dhacnay carruur yar oo la dhalatay baa gabadhi markay shaqaynayso la yiraahdo bal asmay hooyo bal walaasha qabo ama walaalka qabo inta yar bay yara dhibsataan u malaynayaa marka gabadhi xaggayga markii loo soo dirayna waxa ay tiri damxadii ceernaysa gabadhi aan kala tagnaa carruurta dhashay hooyadeedna ahaydna waxay ugu jawaabtay aabahay anaga shuruud baan kala galnay oo 3 in aniga haysto 3na asiga uu haysto 3dii xagga jiray baa tay xagga aad marka de ayadan xumaan day umay oran waxay ila tahay de magaranaysaa si uu timaado gabadha marka inta uu yaadeer marka barbalin ma jiro ilkii carabna way isgaaraan baan filayaa markii u dambeysay oo asma wada hadashaan goorma ahayd asma de maalmada way toolan wada hadalnay oo igu tiri shaqooyin waxbaan deen raadinaya nin wariyo suxufiya ayaa caawinaya inankaasaan caawiyay igu tiri shaqo aniguna dawaan dedegsanaay waxaan u maleynayay inay de hooyada la joogto oo ayadana de maalintii iska soo shaqaysanaysa habeenkina de ma garanaysaa gurigooda iska imanayso markaas waxaan siri gabadha hooyadeed ba hadday wax taraysa de ka xasdin sidii baan de uga gaabsaday ma garad waa gartay aada u mahadsan tahay dadka Soomaaliyeed aad ay ku dhaleecinayaan oo si gaar ah ku dhaleecinayaan
labada dhinacba haddeer dadka soomaaliyeed oo fariintaada ay gaari doonto meel walbay joogaan maxaad halkan ugu caddaynaysaa? waxaan ugu caddaynayaa asme iyo shanta kale dee isku hooyada yihiin ba anigaa dhalay iyo inta kale halkan ii joogto ninna hilibkiisa ma kala jeclo. waxaan u malaynayaa ninna labadiisa garbood inaanu kala jecleen. midigta hadday goodana bidixdaa naafowda, bidixda hadday goodana midigtaa naafowda. markaana carruurtayda waan jeclahay. waxaana waa wax iska wareegayo hadalka biniaadankana haddii ay wax yar lees yidhaahdo waxbay ku darsadaan, laakiin runtii jirtaa taasa. sida aad maqlaysaan aabbahan waxa uu bixiyey xogta uusan qofna ogeyn. adiga muuqaalkan daawanayo marka aad daabatay hadalkii asma aad dhegaysatay hadalka aabbahan sida ay wax u jiraan qaabkay u fahantid, waxaan kaa codsanayaa muuqaalkan inaad gaarsiisid walaalaha kale ee ku wareegsan xogtan. sheekh baa fadhiyey marka nikaaxii baa la ridaayey. wadaadku wax nikaaxay gabadha meher wuxuu oga dhigay 100,000 garaama dahab. 100,000 waa aglaa mahrin samictuhu. laakiin wax jara ma ahe waa iidheh waaye. sawda hadalkeedii ayaan tacliiqin rabaa bis dhammaan inaan wada tacliiqiyo waan jeclaa. shariif maxamed cumar sawda waxay ka dhawaajisay gabdhaha hotelada arooska looga dhigayo. runtii ma hilmaamayo hotel jaziira ayaan ka qayb galay xaflad nikaax. yuusuf garaad baa fadhiyey, xasan sheekh baa fadhiyey, maamo ogaas way fadhiday, aniguna waan fadhiyey. marka nikaaxii baa la ridaayey. wadaadku wax nikaaxay gabadha meher wuxuu oga dhigay 100,000 garaama dahab. 100,000 waa aglaa mahrin samictuhu. waa aglaa mahrin samictuhu waaye. waa maharkan ugu qaalisan aan maqlay. 100,000 oo garaama dahab. laakiin wax jara ma ahe waa iidheh waaye. kalimad baa la igu qoray. intaanan istaagin waxaan idhi horta meherkaan la sheegayo ma xaqiiqa mise waa iidheh? waxaa la ii sheegay iidheh le inay tahay. gabdhaha kale iijibi camal mataqaana gabdhaha iijibi yacni waa xaqiiqa. hadda waa dad badan baa fadhiyey. marka waan istaagay kelimadeyda waxaan ku bilaabay meherka saan hadeertaan wadaadkaa lagu nikaaxay qabiltu nikaaxahaa uu yidhi bihada almahri almadkuur way waajibtay wacnaa way dhacday asaga maadaama uu yidhi qabiltu nikaaxahaa waa wax dhacay oo ansaxay. hadda hadday tiraahdo gabadhan aan dhahay 100,000 garaama inta ii soo dhig waa lagu leeyahay, xaqay u leedahay. iidheh lees ahaa iyo waxaas wax jara ma ah shareecada markii laga hadlayo. marka runtii waxaa jiro waxyaabo badan u baahan runtii bulshada in laga wacyigeliyo. mathalan waxaa ka mid ah qoysaska. waxaad arkaysaa gabar baa la furayaa, caruurtiina wuu furayaa. hadda caruur maa furmaayaan? waa mushkila. waxay ka mid tahay dhibaatooyinka bulshada ay ku dhex leedahay arrintaas. marka bulshada in la wacyigeliyo oo ma arkaysaa towciyada in la badiyo aad bay munaasab u tahay. ragga markay guursanayaanne in la baro fiqhul usra, siday wax u dhaqi lahaayeen, siday wax u maamuli lahaayeen, xuquuqu zawjayni labada dhinac in aad loo fahmo. haddii kale qajajac gurigaas kama dhammaanayo. waxyar maku daraa geedi ma fadhiyaa mise wuu baxay? maasha allah. marka runtii zawaajku waxaa jira waxyaaba badan baa iga guuxayo. laakiin maasha allah waxaad arkaysaa runtii ninkan wax ma baranayo. wuxuu u fahmayaa markii gabadha lagu nikaaxo ama lagu meheriyo inuu milkiyeyba, inuu yeeshay, uu milkiyey, uu hantay. laakiin sida saxdaa waxaa waaye shariika fi lxayaati ay yihiinoo noloshay ku wadaagaan. wax milkin la yidhaahda meesha ma taalo. dad baa waxaa dhaqan u ah gabdhaha markay guursadaan addoon oo kale inay ka dhigtaan, leanna waxba ma yaqaano.
wuxuu u haystaa inuu milkiyey markaasuu garaacayaa uu aflagaadeynayaa garaacitaanka waxaa oogu daran gabdhaha qaarkoodii nafsiyan ahaan ayuu u dhiwayaaba murug ayuu ku dilayaa nabiga xaasaskiisa calayhi salaatu wasalaam ilaahay markuu tilmaamaya wuxuu yidhi walaa yaxzanna wayardayna bimaa aataytahunna kulluhun gabdhaha nabiga inay murgaan ma aha in dhammaantooda ay raali noqdaan marka gabdhaha burugta waa laga ilaaliyaa dhibaatada waa laga ilaaliyaa garaacana waa laga ilaaliyaa dad baa waxaa dhaqan u ah gabar gar la qabtoba leh ganfuur la jabshay leedahay khayrukum khayrukum liahlihi wa ana khayrukum liahlii waxaa idinkuu khayr badan kan xaaskiisa ehelkiisa u roon anigana waxaan ahay kan ehelkayga ama xaajiyadeyda ama xaaskayga u roon ayaan ahay maalin baa ummuna caaisha radia allahu tacaala canha caatay ahayd markii hore wuxuu ku yidhi kaali orod ayaan isugu baxaynaa way orotameen caaisha ka orod badisay bacda sanawaad caaisha hilib yaraa fuulay markaasuu ku yidhi nabiga kaali had aan orod isugu baxnay way orotameen nabigaa ka badiyey sala allahu calayh wasalam gabdhaha in laga badiyo ma jecla xoogaa wejigeeda wax buu ka dareemay markaasuu ku yidhi khaatirkeedii dareenkeedii ayuu doonayaa inuu ilaaliyo wuxuu ku yidhi haadihi bitilka midaan hadda aan kaa badiyey u qaada tii hore aad iga badisay gabdhaha waxay u baahan yihiin in la koolkooliyo la ilaaliyo anjasha ayuu ku yidhi nabiga sala allahu calayh wasalam yaa anjasha rifqan bilqawaariir rifqan bilqawaariir gabdhaha waa dhalo dhalana wuxuu u baahan yahay in la ilaaliyo haddaadan ilaalin dhulkuu bash ku dhahaa waa jooga mana la aruurin karo marka waxaa weeyaan kulamo badan insha allah oo munaasabaad badan baa isugu imaan doonaa wasala allahu calaa sayidina maxamed